السلام عليكم داود يا الكسو دوادا warbaahinta nuxurka wararka qodobada xilligan ku daawan doontaan waxa kamid ah xildhibaanada mucaaradka iyo ahlu sunna oo iska kaashanaya qorshaha ka dhanka dowladda federaalka Soomaaliya isku day lagu hadalsiin lahaa Axmed Madoobe iyo Cabdinaasir Seeraar oo dhucsoobay maxaad kala socotaa xadgudubyada ay geysanayaan ajaanibta Turkishka ay ku sugan magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale ayaa goordhow daawan doontaan haddii janalkan uu kugu cusub yahay fadlan subscribe saar oo riixga maralka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee hela wararka iyo macluumaadka halkan aan idinku daabacno magaalada Kismaayo wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in uu hakad galay wada hadal la doonayo in la isaga horkeeno Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Cabdinaasir Seeraar Maax oo xilli ahaa saaxiibo dhow wada hadalkan waxaa garwadeen ka kala ahaa ergal labada dhinac ka kala socotay oo doonaya in ay isku soo dhaweeyaan Axmed iyo Cabdinaasir oo ku kala tagay doorashada Jubbaland ee lagu qabtay dhamaadkii bishii ina dhaaftay Agoosto magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ah ee Jubbaland wararku waxay inta ku darayaan in labadan dhinac ay kala istaageen shuruudo adag oo midba gooni u watay taasina waxay caqabad ku noqotay in wada hadal lagu dhameeyo waxyaabaha ay kala tirsanayaan qaar ka mid ah ergada labada dhinac waxay warbaahinta qaarkood u sheegeen in Axmed Madoobe uu go'aansaday in Cabdinaasir Seeraar isaga baxo magaalada Kismaayo diyaarna u yahay inuu ku qarash gareeyo halka uu doonayo iyo waliba inuu u sahlo ilaa xad inta uu gacan ka geysan karo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Cabdinaasir Seeraar ayaa arintaasi gaashaanka ku dhuftay waxa uu sheegay in uu diyaar yahay Axmed Madoobe in uu ka baxo magaalada Kismaayo ama goob fagaara uu ka sheego in doorashadii ku guuleystay aanu ahayn mid xaq iyo xalaal u dhacday sidaas awgeedna Cabdinaasir Seeraar uu diyaar u noqon karo haddii shuruudaas laga helo Axmed Madoobe wada hadal toos oo la fadhiisto ergada labada dhinac oo jahawareer ka qaaday labadan shuruud ee adag ee la kala hordhigay waxa ay sameeyeen isku dayo kale ay ku doonayaan in labadan mas'uul waa Cabdinaasir Seeraar iyo Axmed Madoobe ay ka soo dabciyaan labada shuruud ee adag ee ay kala qaateen Axmed Madoobe ma doonayo mana ogolaanayo in qof madaxweyne la sheegtay oo dhinac ka sii joogo magaalada Kismaayo waxa sidaas yiri qof ku dhow Axmed Madoobe oo warbaahinta la hadlay isku dayadan waa qayb ka mid ah dadaalo uu doonayo Axmed Madoobe inuu isaga dejiyo culayska siyaasadeed ee ka soo wajahay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose dhanka kalena ah caasimadda ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland waxa dhawaan fashilmay isku day kale oo lagu doonay in Axmed Madoobe iyo Cabdirashiid Xidig oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka sidoo kalena ku jira shakhsiyaadkii doorashadiisa lagu dhawaaqay magaalada Kismaayo in uu wada hadal ku dhameeyo waxyaabaha uu tirsanayo ugu yaraan Axmed Madoobe waxa uu doonay in Cabdirashiid Xidig uu ku qanciyo inuu ka tanaasulo sheegashadiisa ah inuu yahay madaxweynaha Jubbaland sidaasina ay meesha ugu baxdo shakhsiyaadka sheeganaya in ay yihiin madaxweynaha Jubbaland kadib markii doorashooyin iska soo horjeeday lagu qabtay magaalada Kismaayo Axmed Madoobe ayaa wajahaya culayskii ugu adkaa maadaama dowladda federaalka Soomaaliya xayiraad ay ku soo rogtay diyaaradihii ka degaya magaalada Kismaayo waana tan keentay in Axmed uu ka soo dabco go'aankiisii adkaa ee kolkii hore uu ku sheegay inuusan aqoonsaneen shakhsiyaadka mucaaradaya doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo isagoo iska dhigatirayana doorashada sidaas uu ku galay xildhibaanada mucaaradka ku ah xukuumadda Soomaaliya ay ku sugan magaalada Dhuusamareeb waxay bilaabeen qorshe ay ku soo jiidanayaan madaxda sare ahlu sunna wal jamaa si ugu yaraan ay ugu qanciyaan in labadooda dhinac ay iska kaashadaan qorshaha ka dhanka xukuumadda Soomaaliya kulamo isdaba joog ah oo ka dhaca magaalada Dhuusamareeb una dhaxeeya xildhibaanada mucaaradka iyo hoggaanka sare ahlu sunna wal jamaa oo hogaaminaya Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax sidoo kalena goobjoog uu ka ahaa Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxay kaga arinsadeen sidii xukuumadda Soomaaliya ay ugu gacan marooji lahaayeen hoggaanka shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug ee ka socda magaalada Dhuusamareeb iyo in guddiga doorashada saamiga ugu badan labada dhinac ay kala qaataan si uu meesha ugu baxo hamiga xukuumadda ee ah
in doorashada deegaanada galmudug ka dhacayso saami muuqdo ay ku yeelato xukuumadda Soomaaliya si ugu yaraan ugu soo baxo shakhsi ay wadato inkastoo aan jirin ilaa imika shakhsiyaad dhanka xukuumadda matalaya oo banaanka ay soo dhigay. ahlu sunna waxaa la siiyey xildhibaano gaaraya 30 waxaana heshiis ay la galeen wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye lagu heshiiyey in la kordhiyo xildhibaanada lana gaarsiiyo 119 xildhibaan maadaama 30 ka mid ah xildhibaanada ahlu sunna la siiyey sidaas awgeedna aan laga dhigi karin xildhibaanada baarlamaanka 89 xildhibaan oo uu qorayo dastuurka Galmudug balse madaxda ahlu sunna waxay soo jeediyeen in dib loo raaco bedelkii lagu sameeyay dastuurka xilligii heshiiska ay la galeen maamulkii madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf xildhibaanadana lagu jibaaray inta ay ka koobnaayeen maadaama ahlu sunna awood qoobsi ay ku wada heshiiyeen madaxda Galmudug sidaasina Sheekh Shaakir lagu siiyay madaxa xukuumadda Galmudug waxa yar is-aaminaada xildhibaanada mucaaradka ka xukuumadda iyo madaxda sare ee maamulka ahlu sunna wal jameeca maadaama shakhsiyaadka qaarkood xubnaha mucaaradka ku jira eeda ay ka tirsanayaan kadib markii xilliyo hore ciidan ay la socdeen dagaal uu ku dhex maray qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanada ay ku sugan yihiin ciidanka ahlu sunna wal jameeca. markan waxaynu eegaynaa tacadiyada ay geysanayaan shakhsiyaadka u dhashay dalka Turkiga ee ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. nin u dhashay dalka Turkiga kana mid ah saraakiisha ku sugan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada Muqdisho waxa uu gacan qaad ku sameeyay wiil Soomaali ah taasina waxay sababtay in ay ka caroodaan isla markaana ay ka farceliyaan qaar ka mid ah Soomaalida kale ku sugan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ee sida maalinlaha ugu shaqo tago. qaar ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha waxay dalbadeen in ay shaqo joojin sameynayaan haddii aan wax laga qaban dhibaatooyinka ay u geysanayaan muwaadiniinta u dhashay dalka Turkiga oo waayihii dambe waday in ay gacan qaadaan dadka Soomaalida ee ay la shaqeynayaan. horey sidaan oo kale nin u dhashay dalka Turkiga kuna sugnaa isbitaalka Dayfa ee magaalada Muqdisho wuxuu gacan qaad ku sameeyay gabar ka mid ahayd shaqaalaha isbitaalka kolkii dambe waxaa gadood sameeyay dhaqaatiirtii isbitaalka ka howlgalaysay. ugu dambeyn xubnihii ka socda Turkiga ee isbitaalka ka howlgalay waxay ku qasbeen dhakhtarkaasi inuu raaligeliyo gabadhii uu dhibka u geystay. dadka ajaanibta ee ku sugan magaalada Muqdisho oo qaarkood sameeye isla qabweyni waxay dhibaatooyin u geystaan dadka shacabka ah qaarkoodna la shaqeeyo ee ku sugan magaalada Muqdisho. arrintaas waxaa sabab looga dhigay muhiimad gaar ah oo la siinayo dadka ajaanibta ah ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho taasina ay u sahasho in ay tacadiyo u geystaan dadka shacabka ah iyo waliba dadka kale ee shaqaalaha ah ee la shaqeeyo. Turkiga waxaa xubno ka tirsan ay gacanta ku hayaan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaana shaqooyinka ugu badan saraakiisha Turkida airportka ay ka qabtaan ay tahay in ay kala hagaan diyaaradaha ka soo degaya garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho si ay u sameeyaan baakin ama dhigasho wanaagsan oo ay shirkadaha diyaaradaha fursad wanaagsan ugu helaan in ay diyaarado kale ay soo degaan garoonka diyaaradaha maadaama qaadkiisa la sheego inuu yahay mid aad u yar waa marka la barbar dhigo garoomada waaweynka ah ee caalamiga ee qaar ka mid ah dalalka kale ay leeyihiin. ugu dambeyn warbaahinta dalka Kenya waxay u muuqataa inay dagaal la galayso shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyadoo arintan uga faa'iideysanaysa danaha shirkadda Safaricom ee dalka Kenya laga leeyahay. wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi waxa uu daabacay warbixin la yaab leh oo aan sal iyo raad lahayn oo uu shirkadda Hormuud ku eedeynayo inay ka dambeyso weerar ka dhaca gudaha dalka Kenya oo lagu burburiyo anteenooyinka iyo taawarada ay leedahay shirkadda Safaricom. warbixinta Daily Nation ayaa u muuqata mid cagsi ku ah dhibaatada ciidanka Kenyaanka ay u geysanayaan shirkadaha isgaarsiinta gaar ahaan Hormuud deegaanada ay ka howlgalaan sida qaybo ka mid ah magaalooyinka iyo tuulooyinka dalkan
ee dhaca sohdinta Kenya. Qorshaha dalka Kenya ee ay iska kaashanayaan dowladda iyo shirkadda isgaarsiinta Safaricom waxay dadka falanqeeya siyaasadani ku sheegayaan in ay ku baabi'inayaan tacadiyada ay ka geysanayaan qaybo ka mid ah Soomaaliya. Tallaabooyin Kenya ay hore u qaaday waxaa ka mid ah in ay iska hor keentay maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Kenya waxay diiday in ay ilaaliso xasaanadda baasaboorka diblomaasiga ee Soomaaliya iyadoo si gaar ah baaritaan ugu sameynayso dadka haysta baasaboorada diblomaasiga oo caalami ahaan aanu baaritaan marin. Diyaaradaha ka baxa Soomaaliya oo dib loogu celiyay baarista ay ku sameyn jireen magaalada Wajeer oo horay heshiis ay ka wada galeen xukuumadaha Muqdisho iyo Nairobi. Kenya waxay ku hanjabtay inay aqoonsanayso gobolada waqooyi ee Soomaaliya maamulka la magac baxay Somaliland iyadoo ay labada dhinac yeesheen wada hadallo aan miro dhalkiisa saxaafadda loo soo bandhigin. Qodobka shanaad wuxuu yahay dagaal ka dhan ah dhaqaalaha Soomaaliya oo ay Kenya hormuud u tahay sida in ay bartilmaameedsato ilaha ugu muhiimsan dhaqaalaha Soomaaliya sida shirkadaha isgaarsiinta iyo goobaha kale oo ay u aragto in dhaqaale wanaagsan Soomaalidu ay ka helaan. Tallaabooyinkaas oo idil dowladda Kenya waxay u qaadaysaa sidii ay u muusi lahayd kiiska dacwadda badda ah oo ay fashil Kenya kala kulantay kadib markii waqtigii loo go'aamiyay ay dib ugu dhacday. Guud ahaan warkii aad xilligan ka daawanayseen warbaahinta nuxurka wararka waa naga intaa. wixii warar iyo dhacdooyin soo kordha haddii alla idmo halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Fadlan haddii uu kugu cusub yahay channelkan subscribe saar oo riix gambaleelka qaybta aragtida hoose nagu reeb wixii talooyin iyo tusaale ah. waad ku mahadsantihiin la socodka warkayaga. Nabadgelyo.